السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال سود وهذا ملك استاد الدنيا كجوكتان ولكن كي حسك أسكسونق ونكسن فلا هذا يوتيوب channel كعصبته وحاسس شرف لك يا عود سنة يا إنا يوتيوب channel كسبسكرايب نوسرتي سيدو كله اللو ذاكتيد شير هذا صاحب هذا كلو ذاكتيد مقال كنا ما أنت حكوا سبسين هاي سيدا مارتي وحدي شيء دونا يوتيوبر ذا لعقته كسميان يوتيوب channel كا حتى نحصلار كدونا يوتيوبر كا وين أسد حاجيو تيم 27 سيدا وجدان بوحال كنا كوجرا بيج كيسا يوتيوب كا waxaan isla fiirin doonaa aan isla ogaan doonaa asad xaajiyo lacagta uu ka sameeyo YouTube channelkiisa marka fadlan hadaan ugu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe dhayd sidoo kale like taan u saarto sida u jeeda asad xaajiyo waxa u saaran sawirkiisa u saaran sida u jeedaan asad xaajiyo wuxuu soo galiyay muuqaalo gaarayaan ilaa 1166 halka inta qof ay ku xiran asad xaajiyo ay tahay 1 milyan iyo bar fiidiyoda asad xaajiyo uu soo galiyay ilaa ay haatan waxay gaarayaan in ka badan 250,000 maaragtay haddii aan maaragtay isla fiirno gradekiisa asad xaajiyo waxa uu ku jiraa kaalinta gradeka B+ kaalinta gradeka B+ ayuu ku jiraa marka haddii aan isla eegno kuwan kale nambaradan kale waa ciwaankan hadda isticmaalayo website-ka kaalinta kaga jiro social blade wuxuu kaga jiraa kaalinta 41,000 muhiim ah kuwaneeto viewska kaalintaas wadanka uu joogo Malaysia wuxuu kaga jiraa kaalinta numberka 49 ayuu kaga jiraa maartay dadka ugu lacagta badan ka sameeyo YouTube-ka wadanka uu joogo Malaysia kaalintaas ayuu kaga jiraa 49 maartay haddii aan isla eegno maartay waxaan isla eegi doonaa wax kasta uu maartay halkaas ku qoran marka haddii aan isla eegno halkaas ugu yaraan 30 beri la soo dhaafay macnaha bil waaye muuqaaladiisa viewskooda waxa ay gaarayaan 12 milyan ciyaar ma 12 milyan ay gaarayaan viewska haatan waxaan isla eegaynaa halkaas waxa idin ka muuqdo waxa waaye lacagta uu maartay ka sameeyo asad xaajiyo laakiin lacagta intaan ka hadlin marka waxaan isla eegi doonaa lacagtaas intaan lacagta aan gelin 50,000 oo qof ayaa soo raacday ugu yaraan the last 30 days soddonka beri u dambeysay marka haddii aan isla eegno lacagta uu ka sameeyo asad xaajiyo waxa uu ka sameeyaa ugu yaraan bil kasta wuxuu ka sameeyaa $2,900 ilaa iyo inta u dhaxayso $46,000 marka ugu yaraan markii lagu leeyahay intaas in ka badan ayuu ka sameeyaa waayo ugu yaraan waa $3,000 ilaa iyo $46,000 marka waxa dhici karta inuu ka sameeyo maaragtay $4,000 $5,000 $7,000 $10,000 ilaa iyo inta u dhaxaysa $46,000 marka waa lacag aad iyo aad runtii ugu badan marka ma arkaysid maaragtay inta badan maaragtay youtuberada Soomaalida ayagoo maaragtay soo bandhigay lacagta ay sameeyaan YouTube ka sameeyaan si maaragtay u dhiirigeliyaan maaragtay walaalahooda ama dhalinyarada maaragtay shaqalaanta iska maaragtay sidaas ay maaragtay ayagana maaragtay uga faa'iideysan lahayn fursadda noocan ah aniga hadda maaragtay YouTube-ka nin walba waxay ka mid tahay maaragtay waxyaalaha uu maaragtay ugu weyn yahay maaragtay maalin inuu maaragtay heer ka gaaro sidoo kale lacag uu ka sameeyo marka waxaan ku dhiirigelinayaa maaragtay qofkii maaragtay ku rajo weyn inuu maaragtay maalin uu YouTube channel u furto uu maaragtay lacag ka sameeyo uu maaragtay famous noqdo heer ka gaaro waxa ku leeyahay hore u soco isku day maaragtay waad gaari kartaa adiba marka haddii aan maaragtay isla eegno muuqaaladan uu hadda asaga asad xaajiyo uu soo galiyay hadda waxaan isla eegi doonaa muuqaaladii ugu dambeeyay asad xaajiyo iyo lacagaha uu ka sameeyay ayaan isla eegi doonaa marka haddii aan ku bilaabo muuqaalka ugu koreeyo ah uu lacag uu ka sameeyay gaarayso $100 ilaa inta u dhaxayso $1,000 muuqaalka xigana uu ka sameeyay $100 ilaa inta u dhaxayso $1,700 muuqaaladaas haddii taariikhda muuqaalka idin soo qaban doona ugu horeeyo waxa uu ka bilowdaa muuqaalkaas oo uu sameeyay taariikh 16 bishii 8 muuqaalkaas waxa uu ka sameeyay oo yaraan $100 ilaa inta u dhaxayso $1,600 marka lagu leeyahay ugu yaraan macnaha waa ugu yaraan $100 waa markuu lacag ka sameeynin in marka ka badan dhici karta inuu ka sameeyay $200 $300 $500 ilaa waxa dhici karta $1,000 inuu ka sameeyay waayo wuxuu ka sameeyay $1,000 ilaa inta u dhaxayso $100 marka waa isla eegi doonaa muuqaalada kale sidoo kale muuqaalka ku xig waa arkaysaan oo hoose wuxuu ka sameeyay $100
ilaa inta u dhaxayso $1,700 muuqaalka saddexaadna inta uu ka sameeyay $240 ilaa iyo $3,800 ugu yaraan $239 ilaa inta u dhaxayso $3,800 marka waa isla eegi doonaa muuqaalada kale oo hoose ayagana waa isla eegi doonaa muuqaalka kale hoose asagana wuxuu ka sameeyay $100 ilaa inta u dhaxayso $1,600 marka saa u jeedaanba ciwaankan ku jirno waa ciwaanka Asad Xaajow saa u jeedaan team 27 calaamadda halka idin ka muuqata sawirkiisa halka idin ka muuqda Asad Xaajow marka waxaan isla eegi doonaa sidoo kale muuqaalkii u dambeeyay taariikh 29 uu soo galiyay iyo sidoo kale muuqaalkii ka horeeyay oo Isniintii ah oo taariikh 28 bisha 8 aan isla eegi doonaa muuqaaladaas oo ah muuqaalka maanta soo galiyay oo views-kiisa uu marayo 456 muuqaalkaas live waa wali xisaabtiisa way socotaa laakiin waxa uu ka sameeyay ugu yaraan $100 ilaa iyo wuxuu ka sameeyay $800 ayuu ka sameeyay waa ujeedaan waa ugu yaraan wuxuu ka sameeyay muuqaalka hadda uu soo geliyay oo maanta $100 ilaa inta u dhaxaysa $1,800 marka waxaa dhici karta inuu ka sameeyay $500 waxaa dhici karta inuu ka sameeyay $1,000 maartay marka ugu yaraan wuxuu ka sameeyay $100 waa markay ugu yar tahay ilaa inta u dhaxayso $1,800 ayuu maartay ka sameeyay marka saa ujeedaan kaasna waa Asad Xaajow marka haddii aan u imaano daily average-ka maalinkii Asad Xaajow waxaa soo raacda 1,600 ayaa soo raacda halka muuqaaladiisa views-kooda uu gaarayo maalinkii 386,000 ay gaarayaan views-ka halka maalin kasta lacag gaaraysa $100 ugu yaraan $100 markay ugu yar tahay iyo inta u dhaxaysa $1,500 uu lacag uu ka sameeyo maalin kasta marka waa maalin kasta lacagtaas ayuu ka sameeyaa youtuberka caanka Asad Xaajow maartay dadka ay ku xiran yihiin 1,500,000 qof ay ku xiran tahay marka haddii aan isla fiirino weekly average waa asbuuc kasta waxaa soo raacda 11,000 qof halka muuqaaladiisa views-kooda ay gaarayaan asbuuc kasta 2,700,000 halka lacagta uu ka sameeyo asbuuc kasta ay gaarayso ugu yaraan $600 ilaa inta u dhaxayso $10,000 marka waa qiyaas kartaa inta u dhaxayso $600 ilaa iyo $10,000 waxaa dhici karta inuu ka sameeyo asbuuc kasto 2,000 3,000 5,000 ilaa inta u dhaxayso $10,000 ayuu ka sameeyaa marka last 30 days marka ugu yaraan bishii 30 bari u dambeysay 50,000 oo qof ayaa maartay soo raacday Asad Xaajow ku darsatay oo cusub marka bishii u dambeysay 30 bari u dambeysay muuqaaladiisa waxaa la daawaday in ka badan 12 milyan halka lacagta uu ka sameeyay bisha hadda 30 bari u dambeysay ay ka badan tahay $2,900 ilaa inta u dhaxayso $46,000 marka bisha 30 bari la soo dhaafay mise bil kasta Asad Xaajow waxa uu ka sameeyaa YouTube channelkiisa lacag gaarayso 3,000 ilaa inta u dhaxayso $46,000 marka waa qiyaas kartaa marka lagu leeyahay $3,000 waa ugu yaraan waaye waa 2,900 laakiin waa 3,000 ilaa iyo marka waxaa dhici karta inuu ka sameeyay maartay 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 ilaa iyo maartay $10,000 maartay uu ka sameeyaa bil kasta marka kaasina waa youtuberka Asad Xaajow saa ujeedaanba ciwaankiisa ayaan ku jira marka guys fadlan haddaan nagu cusubtahay waxaan si sharaf leh kaga codsanaya YouTube channelkeena subscribe noo saartid sidoo kale like-ta dhac ku siisid aniga iloobi sida ayadana muhiim waa marka guys muuqaalka sidoo kale la wadaaga saaxiibadaada si maartay uu saaxiibo badan ugu gaaro muuqaalka halkaas ayuu ka eegyahay maanta next waxaa soo sameyn doonaa insha Allah youtuberad waxaa jirta oo maartay shalay gaartay 200,000 subscribers ah Coco Bule waa taqaanin hambal yaan leeyahay Coco Bule oo gaartay 200,000 subscribers in ka yar muddo bil 27 bari ay ku gaartay maartay 200,000 subscribers asay Coco Bule aan soo qabanaya next video insha Allah waxaan ku ogaan doontaan Coco Bule lacagta ay ka sameyso YouTube-keeda ayadoo maartay bil kale ku jirto marka guys idinkana maartay qofka jeceshiina idin soo qabto comment ay wala wadaagaysiin magaciiga meeshan soo dhaha marka intaan muuqaalka xig kulmi doono waxaan ka tagayaa peace